شديدة وعنيه قاب كذا لو دقي تمهدا يركيو سيدا في أرحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتباه عن وناكسن مركل إفيديو عسب جنوك عنا جلس عتان وحباب فاميلا نقول مسنس ودواده مال وناكسن هبي وناكسن سوح وناكسن دور وناكسن عسر وناكسن كل شيء وناكسن أصحاب شو عسب سود دواده أصحاب تولى جب سوق سود دواده لما أنت مسود دواده لما أنت مودد جالهم إن شاء الله نوحنا وذا قصة كورفل لنجرك تاكل سودا سبسكرايب نوصل لايك شير كم صاحب لو تقعد مسنتها سبسكرايب تكون سرنا لايك جرين وشير جرين لما أنت مسنتي لما أنت مودد جالهم إن شاء الله هم مركز إيميل كستر ودعاء قف كستر مسلم ونحن سنة إنه راح عفمة تام نصية إن شاء الله هم إنه بلابا قصة بحكي على ذلك أمريكا كا هلا وري أمريكا رنتي قصة بحبا قصة ويا بدن وحبايب ياب كده وتصور مركز إن شاء الله إنه بلابا قصة إيه waxay ku dhacday nin lagu magacaabo Trant oo 48 jir ah iyo xaaskiisa Savannah oo 7 jir ah. Savannah iyo Trant waxay isguursadeen 5 sano ka hor. Waxay isku guursadeen gobolka waxay deganaa Florida. waxay ahayn labadoodaba dad iskala shaqeynayay shirkad yani electronic ah oo taleefanada sameeyso oo ku taal isla gobolkaasi. sida u shaqeynayeen ayadu waxay qaadeen ilmihii koobaad uurkiisa Soomaaliya ilmihii koobaad uurkiisa inay qaaday shaqada waxay ka rusqeysatay oo yani shaqadii way ka tagtay ka fadhiisatay soo marka asig bisa shaqeynay ilmihii koobaad markay dhashay haddana muddo kadib dhowr bilood markay joogtay haddana ilmihii labaad uurkiisa yeelatay soo marka wax shaqo ah dhan uu iska joojisay waxay noqotay hooyo guri joogta ah. Savannah iyo odayga usoo shaqeynayay waxay isaga jireen nolol iska degan oo heer sare ah. waxaa dhacday ilmahoodii yaraa markuu 3 sano gaaray in odaygu isbedelo uu la imaado yani waji cusub iyo yani face cusub oo hore aan loogu aqoonin kaasoo yani markasta uu la imaanay dhaqamo cusub oo hore looga baran waxyaabo far badan oo cusub ah. ayadoo xitaa xilliyada qaar dadka ka shaqeynaya shirkadda ay sheegaan in xilliyada qaar uusan gurigiisa tagi jirin ayadoo aroortii soo bixi jirtay ilmaha yani wiilka weyn waa kuwan markay iskuulka geyso oo meesha xanaanada ay geyso ama daagiska markay geyso ee waxay sameyn jirtay way soo bixi jirtay asiga waxay usoo qaadi jirtay kafee iyo waxyaabo saas fudud iyo quraaca fudud usoo qaadi jirtay xafiiskiisa ugu keeni jirtay. sida la sheegay markii ay yani xafiiska ugu geyso quraacda markii ugu geyso wax kula dhaqmi jireen dhaqamo aad u adag sida inuu yiraahdo ayaa ku darsada quraacda macnaha kaaga baahan laakiin wax la mid ah. soo marka waxaa dhacday in maalintii dambe ninkii shirkadda madaxda ka ahay oo ku yiraahdo Savannah cunto dambe ha keenin because ninkan subax kasta waan aragnaa waxyaabo uu ku hadlayo asiga ha baahdo asiga soo raadsado tan kale haduusan guriga imaanin oo guriga laba habeen gudahood haduusan ugu soo heenina anaga talaabo ka qaadana because shirkadeena ma ahan meel la jiifta waa meel shaqo ah. saasi ayada iyo ninkii shirkadda lahayd ku kala tagay Savannah. waxaa dhacday in maalintii uu guriga yimid waliba sida asiga afkiisa uu ka qortay uu sameeyay in uu gacan qaado uu garaaco. markuu uu gacan qaaday oo maalinta si fiican u garaacay waxaa ku soo baxay reerihii jaarka ahaa isla markaa ayaga ka celiyay laakiin markii wuxuu dalbaday in la cafiyo uusan dambi kale uusan gelin uusan mar dambe xaaskiisa u gacan qaadeenin. isla markiiba way aqbashay oo waxay tiri oo diyaar waay laakiin waa inaadan mar dambe aadan gacan ii qaadin oo aad hubtid inaadan gacan dambe ii qaadeenin. sidii marka ay ku noqotay qof iska aamusta oo iska sabarta. isla markiiba asigana wuxuu sameeyay in guri kale oo isla meesha ay degan yihiin ama xaafad ay degan yihiin uu ka kiraysto guri hal qol iyo suulig iyo waxaas yani adi iska hal qol oo iskaabulada ama guriga iskaabulada camal uu kiraystay oo isla xaafadda uu ka kiraystay halkaas qol uu degay. hadda reerkiisii caruurtiisii waxay degan yihiin xaafadda iyo xaaskiisii asigana qol kiraa oo keligiisa maqsin keligiisu degay. xaaskiisii way ogaatay inuu maqsin degay markasta markay tagto waxay u tagi jirtay dumar la jooga ama mid ama laba la jooga waxyaabo fara badan oo yani qariib ah ugu tagi jirtay. markii dambe waxay ku tiri haddii aad saan tahay oo aad rabtid in aad gurigan ka tagtid oo aad gurigan ku noolaanin asxan iska divorce gare oo ama iska kayfur si adina aad u noqotid qof xor ah
anigana aan u noqdo qof xora because adigii inaad guriga ka maqan tahay oo aadan imaanin oo aniga le aan daalo adigina aad duurkaaga jirtid lacagti aad qaadatid aadan maxayto marmar aanba noo keeninba oo sad rabti aad naga yeeshi yani macquul ma noqonayso soo marka iska kayfur saasaan anigana ku qancayaa adigana ay kaaga degaysaa culeyska iyo dhibaatada ku haysto wuxuu yiri okay waan ku furayaa habeenkii marka uu yimid habeenkii wuxuu soo qaatay baaskoolad dhowr xabadood ilaa 7 xabadood si la sheego ku dhuftay Mareykankan inta badan dadka yani waxay haystaan hub sharciyeysan hubkana ma aha wax soo siibeen isla markiiba qofku wuxuu heli karo waa hubka 7 xabadood oo ku dhuftay markii xabadii ku dhuftay wuxuu sameeyay marka yani gabadha waxay leedahay marka shaqada ka fadhiisatay waxay samaysatay YouTube channel ay samaysatay YouTube channelkeedii inuu ogaa in isticmaashay waxyaabo far badan sida inay soo geliso waxyaabaha nadaafada oo cleaninga guriga day routine-ka yani ama maalinta shaqada la qabtay waxaas soo gelin jirtay marka wuxuu bilaabay inuu kaamiradii daarto oo kaamiradii sida hadda aan idin hor fadhiyaan uu soo fadhiisto uu video duubo uu yiraahdo asxaabta waa idin salaamay waxaas dhan yani waxaas dhan afiiska sheegay waan ka xumahay ilmihiisa marka rabaa inuu u duubo videoga wuxuu yiri waan ka xumahay man jeclen hooyadin inaan dilo laakiin haddana way dhacday way dhimatay marnaba xitaa one day ma aanan jeclaanin kaliya waxaan rabay inaan ilmo helo adinkaanan idin helay waan idin jeclahay awlaadeydii hooyadin way dhimatay ma aysan qurux badneen yani nolosheeda nolol qurux badan ma aysan ahayn ayada ma ahan qof fiisahan qurux badan soo marka maadaama ay fiisahan qurux badneen anigana dad ayadiga qurux badan aan arkay mana rabin marka maalin kasta ay foolxumadeeda ila soo hor istaagto saas daraadeed marka iga raali noqdo ciyaalkeyga wuxuu u duubay marka 3 daqiiqo 4 daqiiqo oo video oo ilmaha u duubay isla markiiba wuxuu sameeyay booliskii wacay taleefankii guriga booliska ka wacay booliska wuxuu yiri guriga waxa ka dhacay accident ka dhacay soo marka waa inaad saddex isku maateen isla markii booliska markuu marka taleefankii guriga ka wacay soomaha markuu booliska wacay isla markii asu guriga isaga baxsaday wuxuu u maaday booliskii ilmihii yaraa oo guriga hurdaa kaamirada guriga oo maxayto daaran waxay kale u yimaadeen yani oo daqiiqadii markuu ku duub oo meesha ku boosgaro meesha taala waxay kale u yimaadeen gabadhii Zafana meedkeedii oo qolka fadhiga yaala isla markiiba baaritaana la sameeyay waxa la ogaaday yani baaritaanka la sameeyay kadib qofka Zafana dilay inuu ninkeedii yahay la arkay videoga markii booliska daarteen runtii wuxuu noqday video qiiro leh because soo ilmihiisu qancinay dambiga oo geysay ismalahan waxa kale uu sameeyay sabro oo iska qaada jiro oo markii ayada dhimatay waa soo ag fadhiyo oo sabro yani kaamirada isaga qaaday meesha yaala sabrada ayagana diyaar ah oo ay booliska arkeen isla markiiba ilmihi waxa qaaday booliskii Zafana meedkeedana waxa qaaday booliska hospitaalka la qaaday baaritaan dheer kadib ninka waa la soo helay waliba asigoo ku jira qolkii uu magaalada ka kareystay waliba xaafadda ku kareystay waa la soo qabtay waxa la yiri maxay tahay wax ku qasbay in xaaskaaga aad dishid waliba aad video cadeen aad duubtid aad ilmahaada ku leedahay hooyadin inaad dilay laakiin waan ka xumahay ma jeclan inaad hooyo aan noqotin maxay tahay ku qasbay wuxuu yiri waxay lahayd timo kalar aad u foolxun oo kalarka timaheeda inaysan qancin tan kale waxay lahayd dabeecad qof kasta iskaga qoslayso qof kasta ugu sheekeynayso soo marka xilliyada qaar waxa dhacay in ayada wada socon in wiilal ay naga hormaadaan wiilashii ay salaamaan ay u qosasho marka aniga markaan guriga imaadan qosol iska day xitaa farxad yar ma isiin jirin soo marka saas daraadeed qasabtay in aan dilo ma ka xumahay because ilmahayga hooyadooda ahayd waan ka xumahay haddana waxa iga sii xanuun badan markasta markay jidka noo hormaaday u qosashaa faraxda u dhol cadeys halka aniga markaan imaadana ayada dhanba isbedesho ay noqotaba qof nooc kale ah saas daraadeedan u dilay ninkii marka waxaa lagu xukumay xabsi dheer tan kale waxyaabaha uu yiri waxaa kamid ah maadaama gabadha ay 30 sano ay jirto anigana 48 sano jiro oo 18 sano aan ka weynahay qof يعني زيت مثلا كوين هو قفن ذلك العمل سازراد marka taasna waan dhibsaday boolisku waxay yiraahdeen shalay markaad guursanaysid soo raali kuma aadan ahayn waan ahaa laakiin hadana waxaan ogaaday inaan qalad ku jiro because ilmo iga yar qof 18 sano yar inaan guursado inay qalad tan arkay saazraad marka go'aansaday inaan isaga fogeeyo ayada si kale nolosheeda kaga ma fogaanayso
ninkii waxaa lagu xukumay xabsi daa'im because naf dhan uu dilo weliba si ku jees ah xabsi daa'im lagu xukumay ilmihiina saas dawladdu la wareegtay marka meesha wax kaliya ka fahanay waxay tahay aniga iga soo baxay ninkan inuu maseero because markay dadka la hadlayso wuxuu u qosashaa dadku u faraxdaa markasta waxay tahay qof happy marka magaalada la joogo laakiin guriga ma ahan happy inay yani ma ku ahan marka waxay tahay guriga in lagu qoslo oo lagu farxo waxa adiga keensan kartid waa guriga in baha lagu noqdo waxa adiga keensan kartid waa inuu fahantii tan kale marka yani qofka markuu banaanka ku qoslayo waxa laga yaabaa guriga inuu farxad ka waayo sidaraad markuu banaanka ku qoslo oo banaanka farxad uga raadinayo ragga maseerkooda waa halis iska ilaaliyo dumaro insha Allah dhammaantii waa maasantii dhammaantii waa jeclaa qisdantaana ku dhantahay إن شاء الله جنة كتاك وستين سبسكرايب نصار نو الله قرينا وشير قرينا من تماسنتي لما تراد وتجعلها إن شاء الله قفكي رأي قبا كومنتك أي ورهيب قفكي إن شاء الله سؤال قبنا إنستغرام كايو فيسبوك هاي ورهيب لما تماسنتي لما تراد وتجعلها بيس الله